ماخر وحكمت جامعة الصومالية ugu bilicda wanaagsan xagga dhismaha iyo qaabka ay haysto dhismaha weyn waxay ku taalaa magaalada Baran ee gobolka Sanaag waxa ka barta ardayda Soomaaliyeed jaamacadani waxay ka mid tahay asadka iyo hantida qaran ee dadweynaha Soomaaliyeed oo haysto waxay kaalin weyn kaga jirtaa horumarka bulshada iyo geedi socodka nololeed ee loogu jiro sahanka xanashada nolosha ku dhaadan aqoonta iyo saacadada iyo liibaanta iyo barwaaqada taasoo lagu higsanayo in laga dhameeyo riyada ka buuxisa aadanaha iyadoo ay tahay ujeedka iyo bini aadamku inuu ka faa'iidaysto noloshiisa maalmaha ardayda jaamacadda ka baxday iyo kuwa dhigtaba كمد يهين وكالين كجيران هرومركا قبلكا iyo mandiqada gaar ahaan anigu waxaan kamid ahay macallimiinta kulliyadda shareecada ardayda ka baxday waxay kamid yihiin dadka ka shaqeynaya maxkamadaha isuduwayaal barasaab gudoomiyaal adigu waa rag bulshadii iyo noloshii mujtamacii adeegii iyo khidmadii servicekii loo baahnaa kaalinta ka soo dhalan jaamacaduna sidoodaba waxa laga faa'iidaa waa research cilmi baxthiya iyo laga helo khidmad ijtimaaciya kulliyadda educationka ragii ka baxay iyo ardadii ka baxday dhammaan gobolada Soomaaliya loonahay baahida loo qabo macallinka gobolka Sanaag iskuulada ugu waaweyn oo sekondariyada waxa ka dhiga waa ardadii ka baxday kulliyadda hay'adaha sida gaarka loo leeyahay shirkadaha ganacsiga oo dawliga oo bareefadka intaba way ka muuqdaan way ka shaqeeyaan taa waxa la dhihi karaa riyadii iyo oogii iyo iftiinkii ay dadkani higsanayeen oo buddig u ahayd jaamacadda Maakhir inay rumowday jaamacaddu waa socotaa waana la dhigtaa kulliyada badan baa furan maalinba maalinta ka dambeysana waxa lagu turunturoolayaa in lagu dhawaado kadimada aqoonta iyadoo loo marayo habka ku haboon ee lagu gaari karo marka sidaa daraadeed waa u bishaareeyay dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan jaamacaddu way furan tahay gacmo furan ku soo dhawaada horumarka iyo gobolkani malaha shirkado iyo warshado waaweyn asadka iyo hantida haysto waxaan dhihi karnaa waa ardayda jaamacadda ee wax ka barata waxaan qada ku soo koobayaa Maakhir University Baran bulshada ku dhaqan gobolka Sanaag iyo qaybaha kale ee gobolka Soomaaliya sababtoo ah waxa ay iftiin iyo oog u daartay oo tustay dadka wadadii horumarka iyo hiraalka iyadoo loo marayo aqoon iyo cilmi iyo tub isla markaana dhigay waxa lagu higsanayaa barwaaqo in lagu gaaro aad baan u salaamatay